بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى الصوماليات وإني سلامي مالكستو الدنيا دعالة إذا أدكتشوكتان با سلامتا إسلامك أيان إنكو سلامي إن محاجرة ودن كي صوماليا وكلا نحن دب وفرماتشو وحو كيني إنو أبوره قبيلك أو كنا شيء سبيشال إن ماركتي سدو وليبا ماركتي رد بهالكي جيلبك أساقو وكي هاي إن مجحومي أفهمنا مرحان كيودن وسوق ذي شيء إن محاك السعودة المجال ذا إن ماركتي دينا وقوي وقلمذو صنعها بوتلين إن محيطها هاي لبعض هذا يسرق ذا ولجاي نكل وليه سعيدني وكذا ما وعي from إمارات يروحوا كذا ما وعي كينيا سعود كيسو هالكاس أو يري إن مركز هرتوا إن سود وين هي سود وهذا ومدة الصوماليات ملك استود الدنيا ذا دعلة ذي كتشوف تامبا سلامة إسلام كأنكم سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها الصوماليات واحد ربعنا إني شيء سعيد دنيا كبلابنا يبطلن ومدحوينها هالسنة كهر لصوت دورتي إن وحو إسكتني جاي ودمعي معارض كي يقول بتشوك بإنه كذا دعيو إن ما عرفت وضن كدورش عدالة الصومالية كذا عضو داد ومزوليات كي هاي بطلن مركب محاجرة واحد جرى نينكو صعد كيسي سنة ومدحوينها ها وحو كده ما واي from Nairobi to إمارات إن كستا أو تجا أو معارضة هرتا الدنيا ذو وحي كل سنتهاي ومعارض يمحافظ أي كل سنتهاي لبضع سنة أي كل سنتهاي محوية هي معارضكو ونينكا وحاجاتشية نينكا وحدومية معهم محافظ كنا محوية ونينكا قسكا وضع دولة نماذا أو استعمالها أين الأهين دولة أمتك نحيسة أما أدوينها سيدة دولة دلوية قانو مدحوينة كتالية وناقة شعبك دورة شعب كيسا يقول كيسا ششاينا كإلالية مركا محاد عاي إن واحد عاي سعيدني قال إني كعلنها ياي إن كلمة بجرت واجي قلب فرقوا وكسعودي ما حسوستان إني لها يا أحمد مذوبي يفرماتشو واحد اسكو صهري نينك اللي يسعدني واتي داقد لغا دوبay oo wiil yar oo ka duubay oo wiilkii loo hanjabay aad ogeydeen inaan waayo dhan raadinahay cajalkaas yes wala socotaan marka maxaa dhacay waxa dhacay ninkaanu marka uu xamri yimid waqti dheer oo la qaatay asaga iyo farmaajo oo ku jirin ninka la leeyahay Axmed Madoobe wuxuu yiri ninyahow wadankan lacag badan baa naga soo gasha marka waxaan ka rabaa yiri Axmed Madoobe ogaadeen inta faraha ka qaado sida ogaadeen inay ajnabi kale yihiin oo ogaadeen dad Soomaaliya ay yihiin oo xornimada Soomaaliyeed u soo dagaalamay oo aan ognahay oo historiga Soomaaliya maanta wax la qiyaami kara aynan ahayn ayuu wuxuu ku yiri niyo aan isku badbadalano aan cid hawiye ka ilaalino kursigan maalin adigu madaxweyne noqo adiga naftaada isi soo sharax iska casil labadii nin muddo dheer ay ku qaadatay go'aan ay ku gaareen ballan bay iskaga qaadeen in Xasan Sheikh iyo nimanka hawiye oo isku soo sharaxayo Saciidani inuu la rido asagoo ka raadinaya simbatiya hawiyaha kaleeto ama ma aragtay xildhibaanada oo rabo wixii asagu oo helo haduu ka bato ragana inuu ugu shubo farmaajo Xasan Cali Qayrana oo ugu shubo asna ay iskugu shubaan geedu waxay ka socotaa saddex angolaar ay ka socotaa Xasan Cali Qayre oo dana asagu uu leeyahay iyo qayraadka Soomaaliya soo gacanta ugu dhigi lahaa wanaag inuu Soomaaliya u soo sameyn ra'iisul wasaarihi hore waa ognahay 3 sano iyo 7 bilood inuu dad naga dilay waa ognahay wadankeena asaga iyo farmaajo codad qarsoon intay iska duubeen waan ognahay ay ku dhaarteen Soomaaliya inay ka takhalusi doonaan cid hawiye inta ka hartay oo nin aanan een reesada iyo nin mursada waa waxay isku ogaayeen badana Kenya la siiyo in boqolkiiba 50 share looga dhigo inta kalena annagu aan iska dhuuqnaa leeyahay waa taas haddii la siiyo Kenya qadar ay soo galaysa marka sheekada siyaasaddu aad bay u xuntahay sideedaba nin allaale iyo ninka siyaasiga oo damca Soomaaliya inuu wax u sameeyo raba inuu madax noqdo raba ama xildhibaan inuu noqdo raba waa inuu ballanqaad been sheegaa idageysta ama kulmo mintaga uu wuxuu baahan yahay waqtigaas markaas aan ku taagannahay inay dhahaan waxaan qabanaynaa xildhibaanadiina ay been sheegaan ayay horta baadhiyada u dhigaan aan idin sheegay maalinta xildhibaannimada helana waa allahiiska Allah marka aan ku noqono mididani danay waa ninka imaaraad tagay oo yiri anigu nin daarood Ismaaciil aan ahay asalkaygi waxaan ka soo jeedaa nin Arab aan ahay asaa sheekay Arabta anagu waxaan ognahay inuu Soomaali yahay عرب مال نجا سوق شمالنا قانو دد أن لو تشوجين يوضم كلو أنا إهن واحد إرسائل شكت أن كيوا مقلني مركب واحد وين صومالي دي سياسة دودي سي أي قعد وجهلان واحد العكسية أما investment قلية قبيلوين يوضم أين إهن أيوه واحد يري عرب بانهم عرب ما صومالي ولا يهي مس صوماليا دجانوا عرب ولا إمارات وعلى السعودي ولا قلك استيتاي صوماليا إسكملها صوماليا صومالي بان
nin kastoo shisheeye u shaqeeyana soomaaliya biyo kama qaadahayo taas waa inaad ku tashataan marka maxaa jira raalli ahaadee maxaa jira marka waxaa jira siciidani oo dhahayay ninkan waa nin daarood ismaaciil waa nin kablalaxa axmed madoobe waa been axmed madoobe in jallaafo loo dhigo oo qoorta lagu dhego ay xiraan ay waxa go-aan ku gaaray maxamed cabdullaahi farmaajo iyo siciidani ninka la leeyahay asagoo og in laga gardaran yahay oo farmaajo ciidamo ogada ku guray ayay asaga iyo farmaajo warqada kala saxeexdeen inuu ciribta u jaro nin kasta oo mucaarad ah oo hawiyaha ka soo jeeda yaa samaynahaya waa siciidani marka meesha wuxuu yidhi iscasil madaxweynenimada ka tag madaxweyne soomaaliyeed isku soo sharax anigu marka halkaanaan rabaa qayr allaha siiyo isinada puntland dhalinyarada xildhibaanada nimanka daarood ismaaciil oo maanta puntland jooga iyo baarlamaankeeda go-aan immediately inaad ka soo gaartaan aad ka taqallustaan sirmaqaba waa ilaahay ayaa la yidhi laakiin waa qaa'inul wadan waa qaa'inul gobol soomaaliyana madaxweyne ka noqon mahayo danayna wuxuu dhici kara waa ka dhacay puntland dhaqaalahoodiina meeluu geliye lama yaqaano haddaad sii xisaabtantaan one day ama one month dhaqaale la-aan lama dhigin farmaajo waa siinahayey wadamada hawiye ahaayeen wuxuu ku tumanahayey xukunka hawiya lagu fadhiyaa kursiga maanta farmaajo uu ku jirana badbaado hawiye uu ku fadhiyaayo wallahi nin daarood badbaadadiisa inuunu ku fadhin runta anaa inii sheegaaye waddanku waa 4.5 wuxuu ku tuntay sharciyadii ay lahaayeen 4.5ka oo hawiye waa loo aamusay dadkeenniyoo kaba ku duugay dhakhaatiirteenniyoo bereeyey beeralaadeennii yaryaraa ciyaal yaryar oo saqiir oo 14 jir ayuu wuxuu ku guray konteenaro ou dilo wuxuu ku sheegay al-shabaab inay yihiin marka waxyaalo badan meydadku waa la xisaabinooyaa hadda meydadku waa socdaan farmaajo iyo khayre intay soo dileen xisaabtiyaa weli socota waanan ognahay marka maxaa dani keenay danay haddaan shalay ku dhahayo wiilkaygii aatoo walaalkay baatoo nin fiican baa tahay war ninkaa la ogaado qaa'inul wadan baa tahay tuugna waa tahay anaa runta kuu sheegaaye cidda waxaan leeyahay ma jeerteen immediately go-aan waa inay ka qaataan ninkaanu hawiyana jallaafo uma dhigi karo siyaasiyiin hawiyana jallaafo u dhigi maayo haddii waddankan aan la rabin in dagaal labaad ay daarood geliyaan diyaaraan u nahay annagu hadda hawiyana wada realitiga markaa inii sheego dir koonfureed iyo dir waqooyina diyaaray u yihiin sida dadka qaarkood la iskaga qaban lahaa maanta go-aan baa lagu gaarahayaa soomaaliyana waa kala tegaysaa waana kala go-aysaa nin kastana dhulkiisa oo asagu leeyahay ayuu xiranhayaa nin dhul badsan kara iyo nin dhul qaadan kara male barkee waa ninka intuu la saftay axmed madoobe dhabarka jebiyey anigu axmed madoobe markuu qaldan yahayna waxaan leeyahay tanaad samaysay adoo meeshii madaxweyne ka ah marka laga qaldan yahayna waa sheegahaya ilaahay wuxuu yidhi markasta runtaan laga hadlo marka axmed madoobe wuxuu u dhahayay niman daaroodan ma yeelayno aan leenahay wallahi labadaas ninoo daaroodan adduunka ku taagayo hawiye xoolay noqdeeno hawiye dhulraacay noqdeeno oo hawiye raggooda aan u ijaafeynaynin waaba geed hoosta farmaajo kala xiranahaya markaasuu wuxuuna yidhi war xamaraan tego dad nolosha ka dhacay dhulkoodii oo saan u eg ayaan tegayey dadkaan aan iska dhuuqnay waa kaasi ogaada markaasu wuxuu ka dhammaan waayey dani imaaraad iyo wuxuu ka dhammaan waayey kenya ballanqaad ah laakiin ballan waxaa la yidhi sir walaal god walaal ha qodin haddaad qodana ha ka dheerayn ku dhici doontidaa ma ogid waxaan rabaa qof qaaliya oo aad qaali u ah oo taqaana inkay cabdi xoosh oo gurigeeda ka lulufan jiro oo lafaha ka fiiqan jiro oo ka cuni jiray ila dhegaysta hooyada soomaaliyeed dhibka soomaali aad u geysatay naga tago ha nagu soo noqon naaraha ku dhaco alla kula sugay maya adiga dadka usoo bilow hadalka waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaa ka hadlaysaa gabar sacdiyo cali la yiraahdo waxaan rabaa inaan halkan laba hadal aan ka iraahdo oo aan uga jeedo hadalladaasna dowladda federaalka sax horta mid waxaan la hadlayaa dhalinyarada soomaaliyeed oo farmaajo uu la shiro hal war oo muxuu ahaye continue noqday meel walba uu ka sheegtana uu u sheego ayaan la hadlayaa aan rabaa inaan wax xasuusiyo waxna u sheego sax dhalinyaro maanta waddankii waxa lagu dilo wax lagu yeelo shaqo loo diiday la xayiray waxa weeye waa adinka صح farmaajo waddankan markuu imaanayay
صح khudbadii uu halkaa soomaali oo dhan kusoo jiitay waxay ahayd صح inaan soomaali wuxuu qabanayo inaan waddanka daacadu noqonayo inaan dhallinyarada ugu horumarinayo صح ayuu shalay idin lahaa صح haddana waxa uu idiin geystay iyo waxa uu idinku sameeyey inta asaga jilibkiisa xataa mareexaan oo dhan maaha reerkii asaga uu ka tirsan yahay inta a mooyaane dhallinyaro uu wax u qabtay miyaad aragteen waa maya inta la dilo waa dhallinyaro صح bastoolo bay kuwa hubaysan baa dilay muxuu ahayto jaamacad kuwa dhiganayay baa la dilay صح meel baa lagu dilay maalin walba dhallinyaro weeye waxaa la dilayaa maalin walba waa dhallinyaro waxaa la tuuganaya oo la leeyahay dad hubaysan baa dilay صح waxaa la dhahayaa waa adinka farmaajo wuxuu yidhi ninkii mar idage allaha tago mar labaad idagana waa anigiiyo dadnimaday صح farmaajo kelmadda maanta uu idinkula shiraayo oo aad muxuu ahaayeto aad ka dhegaysanaysaan waa tuu shalay idiin sheegay markuu imaanayo kursiga rabay صح maantana waxa waaye kursigiibaa soo dhowaaday صح dhallinyaraa soo daynay wadamaan ka soo qaadnay ay ku xayirnaayeen borosais socday oo asaga ka horreeyey oo xasan sheekh maxamuud bilaabay oo aad og tihiin ilaa caqliga midnaa liidine in maxaabiis meel walbaaba loo maxay too diri jiray oo la raadin jiray oo maxaabiisto iyadoo borosaiskii socdoo dhammaan rabo ayaa farmaajo taybkiisii yimid صح xasanna ka dhammaaday صح wax loo dacwoodo hore weeye صح waxaan bad baan soo celinaynay bad sooma celinayna waa dacwo ka horreysay wax walba oo farmaajo waddankaa ka suurtoobay waa wixii horay qoraaladii loo sameeyey oo la fidiyey weeye laakiin wax asagu uu aas u ahaa ee uu bilaabay ee wax ugu qabtay waddanka soomaaliya ama dhallinyaraha hata halkaa jaamacadaha inta wada dhameeyey ka wada baxay in la dilo iyo in shaqo la-aan ah oo qabiil loo sooco waad og tihiin inay ka dhacday waddankaad joogtaan waad og tihiin farmaajo waxa aad ku saboodi doontaan oo uu idiin sheegayo oo dambe oo aad ka dhagaysan doontaan maxay tahay ha dhagaysanina farmaajo waa beenaale madaxweyne maahan dalna wax uma hayo dadna wax uma hayo waa tuugaa ka iibiyey ajanabi waddanka iyagii ka iibiyey waa midkaa aan wax alla abuurtay etoobiya soo dhundhunkanaya oo dadka yagii maxayto ku dhammaado loogu dagaalamay oo xornimo loo raadinayay kuwii ku dhammaaday ayuu ubax usoo dhigayay oo dhahayay waa kaasaa maxayto kaala ciidamada yadii geesiga ahaa oo idin laayay abii uu ku leehaa farmaajo kaala ubax saar markaasuu saaray farmaajo waa kaas horeyna waad u aragteen waxtarkiisa haddana waaba kiioo kasii darayo 4 sane oo dambe uu rabo inuu idin gumaado inta hartay buu rabaa inuu iskiin raaciyo ha asmicinina farmaajo waa beenaale ballan uu qaadana ma fuliyo waad ogtihiin oo horaad u aragteen 4 sanaad soo aragteen taasi waa midda kaleeto farmaajo isaga u sheegaya farmaajo waxaad waddanka soomaaliya u timid aargudasho umaad imaan daacadnimo umaad imaanin xukun umaad imaanin ummadda soomaaliyeed baad hoday waad hoday been baad u sheegtay beentii aad sheegtay maanta waa la arkay caddaankeedii ma garatay waana lagu ogyahay waxa hadda aad mid walbaana wadaana waa tii horeeta inaad kursi kusoo noqoto ayaad rabtaa oo aad sii dhammaystirto ummadda inta hartay inaad sii dhammaystirto arrimihii aad shisheeyaha badaha uga iibinaysay iyo muxuu ahayto qorshihii inaad dhammaystirto weeye waxaad usoo noqonaysaa naga tag ilaahayna naguma soo kaa celiyo ilaahay boqorka ahaana qayaamo way kuu taallaa dembigaas aad ummadda soomaaliyeed u geysatay waa ay ku sugaysaa aakhiray kugu sugaysaa adduunka intaad nooshahay iska nafacso hooyadu ha baktido aabbuu ha baktiyo ubadku ha baaba'o isbitaal ha u samaynin shaqa ha u samaynin waxba ha u qabanin taasaad ku socotaa soo maahan inta caqliga leh iyo inta maxayta waxbaratayna ka dil ayaad gaartay maantana waxay maraysaaba umulihii in la dilo
colaadda soomaali aad kala dhex dhigtay oo beelba beel ugu dhawaysa oo beenta u sheegtay oo beelba beel tiritan kasoo horjeesta maanta waxay maraysaa umulo in la dilo ilaahay waxaan ka bariyay raasa rasuul hadhigin cag hadhigin ubadkaagaad ka helaysaa maxay dhalaan baad ka helaysaa dhibka soomaali aad u geysatay naga tago ha nagu soo noqon naaraha ku dhaco alla kula sugayay aamin 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 aadaan kuugu mahad celinayaa walaashay macaan qaaliyey aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa nabaday walaashay waxaan rabaa inaan inii sheego maxamed cabdullaahi farmaajo oo damacsan inuu ciidamo soomaaliyeed oo gaarahayo ilaa 500 600 oo ciidan ah oo dharcad ahaan lagu qaado oo la geeyo magaalada Ethiopia markii ardi sababa laga dejiyana ayagoo dariskooda wata in la qalabeeyo oo hub la siiyo ay ka dagaalamaan maaragta halkaas si loo soo kala yareeyo oo loo soo dilo marka waxaan u sheegayaa ciidanka Soomaaliyeed dagaal Ethiopia oo farmaajo inii geeyo oo halkaas qoryo inii ku rarto dan inii ku jirta ma ahan Soomaalina mala Ethiopia waa walaalkeeyo maanta dhibaato haysatana ma socoto waxaan u sheegayaa ciidamada Soomaaliyeed inay iska ilaaliyaan dhagarta ku soo socoto oo la rabo in lagu qaado oo la geeyo Ethiopia oo dagaalka Ethiopia ay ka qayb galaan be careful ahaada qabiilooyin badan oo isku diin aan ahayn oo kala diin ayaa degan Soomaalina waa la yaqaanaa birina shacab Soomaaliyeed ayaa la ugaarsan doonaa ama Tigray ha noqoto ama Oromo ha noqoto ama qolo kale ha noqoto ama Xabasho ha noqoto waxa la yahay ciidanka Soomaaliyeed haddaan rabtaan qoryaha dhiga ka taga maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu idii adeegsaday shacabkii Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ka qabtay wadanka Soomaaliyeed male dhalinyarada uu la kulmo waa dhalinyarada sida oo asaga uu ka tirsan yahay iyo xoogaa dhulbahanta ah waad ogeydeen gabadhii dhulbahantoo tiri maxaad u qabatay goboladayda in la yiri Fawziya waxa sheegayso anigu ma aqaan gabadha magaceeda inkay madaxweynuhu uu kari waayay Soomaaliya waxaan u sheegayaa nin kasta oo xildoona special xildhibaanada waa xildhibaano hawo socota ah beelooyin ah markay kursiga ku fadhiistaan oo labada shilina ay siiyaan inay in ka danaystaan ayna biri waxba inay qabanin waxaan u sheegayaa xildhibaanada la soo soocayo waa in xildhibaano wax ku ah oo qabiilooyinka islaameed ay la xisaabtami karaan dad ayagu ay yaqaanaan inay soo saartaan non ciidamada wadanka oo farmaajo uu qortay oo nabad sugidda ah oo la soo dirahayo iska ilaaliya Hirshabelle go'aan ay ka gaartay aqoon hoose yeesheen waa la isfahmay sambalowjana waa soo socdaa insha Allah biidnallahi alkariim marka waxaan leeyahay be careful in laga ahaado hello our life am ku jira marka waxaan leeyahay maaragteen in la iska ilaalisho oo maaragta aad ogaataan ninka aad wax u dhiibanaysaan aad wax ku darsanaysaan waa criminal maxamed cabdullaahi farmaajo ninka la leeyahay siciidanina maanta wuxuu noqday qaa'inul wadan Soomaaliya qaa'inka ugu weyn oo tuuga oo afninshaarka ayuu noqday waanan ka xumahay halkaan waxaan uga mahad celinayaa nimanka ma jeerteen xildhibaanada wasiirada waxgaradka maaragta isinada ayaan halkaan uga mahad celinayaa inaad gacan kulul ku qabataan farmaajo saxiix bay kala qaateen wallahi billahi tallahi siciidanay waraaqay kala saxiixdeen in maaragtay uu faylagooyo inuu iscasilo in maaragtay isku soo sharaxo madaxweynimo waxaan u jeednaa qiyaamo inay ku jirtay aankee ninkii walaalkay ahaa uu dhahayay waa nin daarood Ismaaciila oo maaragtay Axmed Madoobe ilaah buu qabaa waxa la yiri diino waa lagu tashaday suuri ilaahay ma saddexayno meesha la iigu tashanay Axmed Madoobe hawiya u taagan oo gacan siinaya hawiye iyo cid la leeyahay ogaadeyno waa walaalo ayakaa wax istarhaya ayakaana garab siinaya haddii uuna digtoono ka noqonin ninka la leeyahay siciidanay oo qaa'inul wadanka oo tuuga ah oo carabta u cararay oo hadda wuxuu wadaayaa la yiri rufiyaannimo imaaraadkii uu ku dirahayo nimankii hawiye oo siyaasiyiinta ahaa hadduu yahay maxaa la yiraahaa xasan sheekh maxamuud iyo hadduu yahay shariif iyo hadduu yahay cabdiraxmaan cabdishakuur ana dilaal inii noqonahayo yiri imaaraadkii wuxuu ku leeyahay ana dilaal inii noqonahayo ana madaxweyne isku sharaxaya aniga investment geliye maxamed cabdullaahina waa ii baahan yahay marka waa inaan cidan cayayaanka aan ka ilaalinaa kuraasta uu yiri marka waxaan idin leeyahay wax la qaadan kara ma ahan abay ana ku soo wacay live aan ku jiraaye marka waxaan idin leeyahay wax la qaadan kara ma ahan wax aan ku socon karnana ma ahan marka waxaan leeyahay waa qaa'inul wadan siciidani cidda daarood Ismaaciil special majarteen dhulkoodana waxba u qaban mahayo waxna u sameyn mahayo lacagaha la dhigeeyay hadeertaan Puntland siciidani iyo farmaajo iskale mi fahmaysaa in qalalaasa laga bilaabo Puntland
waxaan dhahaynay anigu markaan soo galo ila reegal mudugaanay waxaan idhaa waryaa ama dayriskaada ku dayo ama ka damaqsano waxaan dhahayay mooryaamkii axmed qoorqoor oo jiibka farmaajo uu ku jiray oo farmaajo u saxeexay ma fahmaysaa oy wada saxeexeen ninkii hirshabeelle haysta wuxuu isku casilay asaguna farmaajo inta la yidhi lacag baa lagu siinahayaa uu saxeex ugu riday wadamada hawi ninkaan lagu leeyahay lafta gareen waa ninay u dhammaatay oo qaa'inul waddan ah oo intuu masawirra u dhiiba yidhi waa abtigay anaa lacag ini siinahaya anaa wax ini siinahaya farmaajaan rabnaa dhaha markaasaa ciddii raxan weyn waxay leeyihin farmaajo waa xoog farmaajo muxuu kuu qabtay sow galmudug u shiiday ayuu kuu shiiday dadkaada u nax iska qabta ninka la leeyahay lafta gareen dadka iyo mudug waxa ka socda waa inay ankay gaaraan meeshaas oo maaragtay koonfur galbeed isbeddel waa inuu ka dhacaa shiiqiiniya intaas la haystay shiiqiiniya la diiday in la soo daayo hadda markuu yidhi aniga ma ila jirtaa uu yidhi madaxweynaha kaa dhigahayaa lafta gareenaan tuurahayaa farmaajo waa rufiyaan waa qaa'inul waddan wuxuu waddankan ka qabtana male qof bilaadan uu soo daayana male qof uu wax tarayna ma aragno meel uu dhisayna ma aragno taallooyinkaad arkaysiin oo istoriga asaga waa ka horreeyeen dadkii xabsiyada laga soo daynahayay asaga waa ka horreeyeen waa damaandooyinkii xasan sheekh maxamuud wax kasta asagoo ka horreeyeen xasan tiisaa dhammaatay farmaajaa soo koray maanta ma uu ku faani karo halkaana waxaan rabaa inaan ka hadlo oday gabdhaha habargidir caayi jiray oo iska dhiga inuu maaragtay waxgaradka murursada uu ka mid yahay aan ka xumahay murursada inama haysta anigu laakiin ninka noocaasa waa in laga hadlaa laba kalmadood laga dhahaa xalow wuxuu yidhi odayaashiina habargidir waa idinka ku mutuxahaye waryaa markaa adigu aad afkaada kusoo qabanaysid cabdiraxmaan cabdishakuur muxuu sameeyey kii adigu aad daafacaysay qof ii codaan rabnaa adaa dhahaya qof ii cod soomaaliya ma ka dhici kartaa kama dhici karto ma laga shaqeeyey abni ma jiraa maxaa afka allaha ku gooyo qallajisaha kugu dhacday maxaa cabdiraxmaan cabdishakuur ku tusay waryaa waa madaxweynaha 22 waana madaxweynaha soo socda waanan ogahay inuu madaxweyne ka noqonayo soomaaliya adiga iyo noocaadoo kaleetana waa naqaanaa waxaa tahay barkii qayraa la mid tahay adiguna qayre oo hawiye kabahoodii ku duugay aad la mid tahay qayre oo qaa'inul waddan oo baddi soomaaliya saxeexay asaga iyo maxamed cabdullaahi farmaajo ay ku heshiiyeen waa qaa'inul waddan waa ninka culimmada laayay waa ninka dhiigga galay yaa waa ninka u danaaninay sidoo aad leedahay waryaa muxuu u qabtay xasan cali qayre waa dhacay waddanka dhaqaalihii waddankao dhan oo dhacay muxuu u qabta waryaa asaga iyo farmaajo waa ku heshiiyeen codad bay iska duubeen waraaqay saxeexeen oo la hayaayo la helay maxaa ka hadlaysaa cabdiraxmaan cabdishakuur afka aad ku aragtay ishaad ku aragtay allaha ku kala marooriyaan ku leeyahay may fahantay afkaadana ka du waana kaa cilmi badan yahay ninkii badda saxeexay nin wasiira bad ma saxiixi karo qofka aanan aqliga lahayn oo maskaxda lahayn oo ciyaalka ah oo la dhaqi karo ayadoo madaxweyne joogo ayadoo cumar cabdirashiid oo joogo ra'iisul wasaare ka ahaa soo nin wasiir oo u saxiixaya bad Soomaaliya wariya dadka maxaad u malaysay waa laga cilmi badan yahay waa laga aqoon badan yahay haddaad isleedahay ilmaha yar yarka cabdiraxmaan bad saxiixay bad uu saxiixi karo maxay tahay nacladu ha kugu dhacdo 7 nacladoodna ha kugu dhacday shalayna naagaha habargidir hoostooda caayisay ma naaga habargidir kugu daadiso kaadi kugu firdhisay waa ku naqaanaadoo kale ishay afkaad ku aragtaba allah kaa gooyaan ku leeyahay waa madaxweyne waana kaa cilmi badan yahay qiimuhuna leeyahay marqaatiyaalaana lahayaa gaalo wada sirdoona ayaa marqaatiyaalka ah wuxuu yahay cabdiraxmaan cabdishakuur soomaaliya maalintuu madaxweyne ka noqdana soomaaliya samaday isku xiraysaa ay tegaysaa aan ku leeyahay adiga iyo rufiyaanka lagu masruufo maye farmaajo wuxuu sameeyo saas wixii uu saxeexay oo la soo ansaxay yaa soo ansaxaya waryaa dad tuuga oo baarlamaanka jooga soo ma ogid baarlamaanka inuu u afduuban yahay farmaajo oo gacanta ku haya mursal iyo mudayba labada nin oo qaa'inul waddanka inay ayaka yihiin ma ogido nimankii galmada keenay inay ayaka yihiin ma ogido waryaa you know nin muslimna ahayd maxamed cabdullaahi farmaajo oo orthodox uu yahay yaa waay nimankii 2 sano iyo 3 sano ka hor soo diray ciyaalka oo gaaleeyay oo yiri suuqa galay waxaa tiraahdaa calanka Soomaaliyeed oo buluuga oo 5 xiddig ku taalo waa calan gaaleed hadday 6 ku ooleeda la dhilaa waa calan gaaleed waa 5 markaasuu wadamada waxaan ku soo arkay waa ninaan aqoon lahayn oo aqli lahayn oo wax lahayn shanta oo arkay faraqood waxay ka tirsan tahay shanta Soomaaliya oo kala maqan ay ka tirsan tahay Djibouti ku jirta waxa ku jirtaan ku leeyahay gelinka shanaad waxa ku jiraan ku leeyahay meeshan geeskan oo maaragtay ogaadeen iyo dhahna anaku oo ka tirsan Kenya waqooyi waa joogtaa Soomaali inta kalena waa joogtaa dadkaas inta la soo diray dadkii baad adna walaal la mid tahay nin weyn oo cimri leh oo 70 kii kor u dhaafaya tahay waxa ku hadlaysid cabdiraxmaan cabdishakuurna waa ka weyn tahay waana ka diin badiya adiga hadda saas u rufiyaanahay oo cabdiraxmaan wax ka sheegahaya ninkii nabigeena suubana calayhi salaatu wasalaam caayay soo ma ahay sheekh umul oo yiri sare joogu kaadida ka taleejinayay
ninkii dariiqa maraya yiri xagga ka soo maray gadaal iga soo mar maxaad uga hadli weyse آيات إلهية والنبي قال لك أو إنكره كي يري النبي محمد باقادي تلجي عليه الصلاة والسلام وحاي وذاك اسكت شيء جاي والشيخ أمل ما هو حاجة شيء كويس صار الشيخ أمل ما هو وحده النبي قال ما الحس إن جفت أنت يقول شيء ساس وسود هذا نيسو ناقبة ما الحس كجوري سو قرب كيسي كسحان نيسي وحن كلها يا هاي داهر محلي رامج عيسى إن داهر إسلام ما محوا داهر إسلام ما وحن كلها نيو صبروا سوما أهن فنحلي وحي دايسي نمكي ناقو واسمينيهين أو كلامة الرب بانتا كشك تحلميري سوما أهن أو تري وابانو فرتا آذن لغا مسامي ناقا أو الدينيو الإسلام أو قرنتي كتابك كجرتو وريا عبد الرحمن عبد الشكور أفكاد كو أركتي ملح الله كاقا صودادي أفكاد فيري مالكستا كلا اللاب ماهي أو ضي وين أو أسيقا كوين باتاي كان أديرك أوتاي أو الماديرك آتيين حسن على خيري أو واحد كله قائن الوطن أو صحيحي خيراتك وطنك أو لعق الشركة كقاطي أو ضد كمودي كدوجي أو وطنك لدمر أو إثيوبيا أنت وتجربات بديري بدأ إنسينها يا صومالية يا إن أنا قبل حوالي قاعد نكتب قصة صار صحيح قاعد عنها هي إمجد لين كوري وريا كواس كورن وزير بض مقطع عبد الرحمن عبد الشكور نبض كذي كرمان وانا كان علمي بدنياي وانا كان اقوم بدنياي هبل قدرنا اسقي وضطاء يكون تحي وانا مدحوينها سو سocda تواني لبدا كن يا 20 يكون adiga wax lagu xanaaqo dhikar la isku ridaba ma jirtaba oday saqajaan haata ilaahay inta ka cabsatid nimanka islaamid waa ku naqaana nin waxa tahay lacag la siiyo oo caada qaata oo farmaajo oo masruufo xasan al khayran oo masruufo we know london oo dhanna waa laga yaqaana marka daayiro waxaan ku leeyahay dadka aad caayaysid iyo dadka aad u gogol fiidanaysid xiniyooda taaban oo la naaga dhan oo habar gidir aad caayday tirisilkooda ura adoo nin weyna aan hayna cajaladii adoo nacaynaya aan wali ku aamusano isheena aan kugu raadinayna magaalada London insha Allah bidna Allah karim maalintaas kelmadii aad nagu cayday ciidan ingiriiskana waa la geeyay adigana waa laga takhalusaya ana runta ku sheegay saad u caytanta inaad bil aadan damba aadan caayin ayaan ballan qaadahayaa inaadan qof damba bil aadan oo naagad aadan caayin ajalka ingiriiska loo geeyana waan haynaa ilaa haddana waa duuban yihiin hadalladaadu iyo waxaad tiri marka waxaan ku leeyahay dab yar ma shidaysid lacagta lagu siiyo qaa'inul wadan baa tahay hooyada yaanyada gadoo hawiye shirinkeeda lagu soo diraa ila ma shaqaystaa waa lagu yaqaanaa London ma fahamtay marka waxaan ku leeyahay afka ay ku caytamaysid ka fiirsay dadka caayaysid dabar gidir adna waa ka horeysaa ummado dhanna waa ka horeysaa maanta farmaajo kursiga uu ku fadhiyaa ayaga ku haya hawiye hadayna rabin mar hore shan kuula ku dhuflaayeen arag Puntland farmaajo isku dhiibay waa saas dadku ayaka reer Puntland ana ka taqallusaya reer Puntland aan isinadooda waxa laga rabaa inay hawiye gafka u geystay siciidane inay ka hal mariyaan annaku wuxuu noogu shubana ugama baahni waxna ugama shubni wadanku ama waa kala tagahaya oo nin kasta dhulkiisa kaliya maamulanaya oo waxa la noqonayaa federal kala go'ay oo nin u talin karin ama siciidane qiyaamadu ku sameeyay Ahmed Madoobe taagan iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo taagan ya wax la qaadan kara ma marka Soomaali waxa la yeeray dhalinyarada Soomaaliyeed oo ubaxa dalka soo baxaysa ilmaha farmaajo oo xabadaha siiyay waa reesada waa dadka asagu uu ka dhashay marreexanka anigu waa in ka bajaa nin halkaan asagu waa u danaananayo marreexan war annaka cad noo galay marreexanku annaka aan u danaananayna marreexan waxay yihiin ku sheegayna annaka caayayna marreexan oo dhanna raalli ha noqdaan ma caayayne laakiin reesadu waxay yihiin annaka ka badin annaka aan cad noo galay adigu lacag baad ku qaadataa riya annaka lacag dawlad Soomaaliya wada jirkeeda iyo inay isdhex galaan ay dawlad free noqdaan oo dimuqraadiga oo nin allaale inka ku qaldama dawladda la dilo annaka raalli ka ahriya non intay dhagax meel noo dhigaan ay yiraahan ay ku soo caan baxaan isku masawiraan gaala xun oo u timid wax kale inay sameeyaan iyo galmudug waxa ka socda waan ognahay dekada beenta laga sheegayna waxyaalo badan baa socda